dugsiga Jamaal Cabdinaasir oo kamid ah dugsiyada ugu facaweyn gobolka Togdheer ayaa maanta abaalmarino kala duwan guddoonsiiyay ardadii kaalmaha hore ka gashay imtixaankii sanad dugsiyeedka dugsigaasi munaasabad ballaaran oo ka dhacday xarunta dugsigaasi oo ay ka soo qayb galeen mas'uuliyiinta wasaaradda waxbarashada xildhibaano waalidiin iyo maamulka dugsiga Jamaal Cabdinaasir ayaa waxa halkaasi ugu horeyn ka hadlay maamulaha dugsiga علي دعالة آذن وحنا وكورمي تاريخ ديالة دكسي لها يهمل هذا المستقبل كده وهكسن أيه سكول كاسي نصيب بلدي أعتقد هاي نصيب كوسي كبر تاردوس جمال عبد الناصر هو نصيب كوجدك هو أعتقد هذا نصيب هنا نصيب أتان المهنة الله حساب تلتان نلا حساب تلتان ولا ويديسان المهيجة هبن انتبهوا مغربيشن انتبهوا مغربيكن sidoo kale waxa iyaguna halkaasi ka hadlay xubno ku hadlayay afka macallimiinta iyo ardayda iskuulka oo soo bandhigay qiimaha uu waqtooda ka leeyahay iskuulkani ayaguna dareenkooda ku cabirayay gabayo iyo nashiidooyin ay ku amaanayeen iskuulkani sababtu iskuulka Jamaal Cabdinaasir waxa weeyaan waa madi weeye waa iskuul mariya dhammaan jamhuuriyadda Soomaaliland wuxuu taagan yahay iskuulkanu luqad carabiga ama marka ayuu taagan yahay dugsi baahan weyno barayaal aqoon iyo bartayaal dhageysto boqor maamulahayaga bilicdii dugsigeena ilaah baa nabadiyo nagu saaray barasho naga siiyey booskana boqora wallaahi ka ilaali balada bilicsama dugsigeegu aan waligii baylay xildhibaan nuux maxamed xuseen iyo kormeere ka socday wasaaradda waxbarashada oo iyaguna halkaasi ka hadlay ayaa ardayda Jamaal Cabdinaasir u soo jeediyay inay ku dadaalaan sidii ay aqoontooda u laban laabi lahaayeen waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa ugu horeyn waalidka u dadaalay ardayda iskuulkani sumad buu lahaa sumadda uu lahaa waxa weeye akhlaaq iyo diin ardayda waxaan ku boorinayaa in akhlaaqdii iyo diintii uu lahaa la idinka helo iyo maamulka iyo wasaaradda waxbarashada iyo dhammaan daneeyayaasha waxbarashada haddaan iska kaashan ma soconayso waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa marka ugu horreysa Allah mahadle laakiin waxaan u mahadcelinayaa hooyooyinka oo mar kasta ubadka daba taagan oo meeshii la isugu yimaadee waalidku yimaadaan ba iyagu 80% ka badan gabagabadiina waxaa abaalmarino la guddoonsiiyay ardaydii kaalmaha hore ka gashay imtixaankii sanadkani kalaasyada dugsiyada sare iyo kuwa dhexeba Shaafici Maxamed Ibraahim telefishinka Soomaali News gudaha magaalada Burco.